halkan wax ma la isku waynaale wararkii ugu dambeeyay xaaladda dagaal ee magaalada Ceergabo beesha Warsangeli oo hubkii ugu badnaa iyo gaadiid dagaal ku soo bandhigtay jiidaha magaalada Ceergabo iyo deegaano ka mid ah gobolka Sanaaga beesha Warsangeli oo la soo degtay gaadiid dagaal oo fara badan iyo hubkii ugu cuslaa ee dagaalada Qaatumo iyo Maaqir oo wada diyaar garow xoogan abaabulka dagaal ee ku wajahan magaalada Ceergabo xogo culus oo laga helayo duulaankii ugu weynaa beelaha harti ee Ceergabo ku wajahan kadib dagaalka calmiskaada maamulka Qaatumo ciidamadii ugu badnaa hub culus iyo gaadiid dagaal ugu diyaar garoobaya jiidaha dagaal ee magaalada Ceergabo iyo gaadiid dagaal oo horle oo ay la soo degeen beela ka mid ah maamulka Qaatumo ciidamo beeleedyada Somaliland oo dhankooda ciidamo beeleedyo horle ku soo daabulaya gudaha qaybo ka mid ah magaalada Ceergabo beelaha kala ah Habar Jeclo iyo Habar Yoonis ee qaybo ka mid ah magaalada Ceergabo dega oo ciidamo beeleedyo horle ku hubeynaya gudaha qaybo ka mid ah magaalada Ceergabo Qaatumo iyo Maaqir oo muujiyay diyaar garowgii ugu xooganaa xaaladda dagaal ee magaalada Ceergabo iyo beelaha kala duwan ee Qaatumo iyo Maaqir oo wada diyaar garow xoogan iyo hub urursi beelaha kala duwan ee beesha Warsangeli oo bilaabay qorshe gaadiid dagaal oo fara badan ay kula soo degayaan xogii ugu dambeeyay xaaladda dagaal ee magaalada Ceergabo diyaar garowga xoogan ee xilligan ku wajahan dhanka iyo dagaalka magaalada Ceergabo gaadiidkii dagaal ee ugu badnaa ee gaaray qaybo ka mid ah deegaanada gobolka Sanaaga la soo degidda iyo soo bandhigidda gaadiidkii dagaal ee ugu badnaa ee beesha Warsangeli iyo xaaladda xilligan ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaana gudagelin faafahinta qodobadaasi fadlan muuqaalka like taabo una sii share garee saaxiibada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada nagu soo biir daawade haday taa markii kugu horeysay aad soo booqatay channelka si aad marwaliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay ee dalkii dibadda xogaha xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyay xaaladda dagaal ee magaalada Ceergabo waxaa soconaya diyaar garowgii ugu xooganaa iyo dib u dhis xoogan oo xilligan ay sameynayaan ciidamada kala duwan iyo hoggaanka Qaatumo iyo Maaqir ee jiidaha dagaal ee magaalada Ceergabo iyo deegaanada kale ee gobolka Sanaaga oo xilligan ay gaarayaan diyaar garowga gaadiid dagaal horle iyo sidoo kale isu diyaarinta gulufka dagaal ee magaalada Ceergabo oo la filayo kadib dagaalka calmiskaada xogii ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya in xilligan diyaar garowgii ugu xooganaa iyo la soo degidda gaadiid dagaal iyo hub noocyadooda kala duwan maalmihii ugu dambeeyay ay la soo degayeen beelo kala duwan oo ka mid ah beelaha Qaatumo iyo Maaqir beesha Warsangeli ayaa hubkii ugu badnaa iyo gaadiid dagaal ee ku soo bandhigtay deegaano ka mid ah gobolka Sanaaga beesha Nuux Cumar ee beesha Warsangeli ka mid ah ayaa Ceergabo ugu diyaar garoobaysa gaadiidkii dagaal ee ugu badnaa iyo hub ay la soo degtay saacadii ugu dambeeyay beeshan ka mid ah beelaha Warsangeli ee dib u dhiska xoogan iyo diyaar garowga gulufka dagaal ee magaalada Ceergabo wada ayaa soo bandhigay gaadiid dagaal oo fara badan iyo sidoo kale hub ay la soo degtay iyada oo in ka badan 7 gaadiidka dagaalka noocyadooda kala duwan ku soo bandhigay iyagoo la soo degay ee goor dhaweyd sidoo kale beesha Nuux Cumar ee beesha Warsangeli ee si weyn qayb uga degta dhanka iyo magaalada Ceergabo ayaa soo bandhigtay gaadiidka noocyadooda kala duwan oo beeshu ay ku sheegtay inay kaga qayb qaadanayso gulufka dagaal ee ku wajahan magaalada Ceergabo gaadiidkan dagaal iyo sidoo kale hubkan ayaa la sheegay inay yihiin kuwo horudhac u ah sidoo kalena la filayo in gaadiid kale ay soo degaan maalmaha soo aadan ee ku wajahan diyaar garowga dagaal ee dhanka iyo magaalada Ceergabo sidoo kale maalmo ka hor beelo ka mid ah beesha dhulbahante ee sida weyn u dega magaalada Ceergabo gaar ahaan beesha Naaleeye Axmed ayaa la soo degtay gaadiid kala duwan iyadoo beesha ka mid ah beelaha Qaatumo dega ee sida weyn xilligan dib u dhiska xoogan wada ayaa maalmo ka hor soo bandhigay gaadiid kala duwan qaarkood oo ay la soo degtay halka qaar kale ee deegaano kala duwan xilligan ka soo daabulayso iyadoo diyaar garowgii ugu xooganaa ay si weyn u sameynayaan beelaha kala duwan Qaatumo iyo Maaqir ayaa wada diyaar garow xoogan iyo abaabul guluf dagaal oo ku wajahan dhanka iyo magaalada Ceergabo iyadoo beelaha kala duwan ee Qaatumo iyo Maaqir xilligan si weyn ugu loolamayaan diyaar garowga la soo degidda gaadiid horle iyo diyaarinta ciidamo kala duwan oo beelahan ay si weyn isaga soo xulayeen todobaadyadii ugu dambeeyay gaadiidkan dagaal iyo hubka noocyadooda kala duwan oo xilligan ay bilaabeen beelaha kala duwan la soo degidooda ayaa lagu sheegay inay yihiin gulufka dagaal ee ku wajahan dhanka iyo magaalada Ceergabo iyo xaaladaha xilligan halkaasi ka soo kordhaya
xogo culus oo la helayo ayaa tilmaamaya gulufka dagaal ee magaalada Ceergabo in dib loo dhigay xilli beelaha harti ee dagaalka magaalada Ceergabo la filayo in uu bilowdo kadib dagaalka Calmiskaad oo la filayo in toddobaadkan lagu soo gabagabeeyay sida xogii ugu dambeeyay tilmaamayaan dagaalka culus iyo gulufka Ceergabo ku wajahan ayaa xoguhu qaar ay tilmaamayaan in diyaar garowgii ugu xoogana uu soconayo xilli beelaha kala duwan ee Qaatumo iyo Maaqir ama beelaha harti xilligan wadaan guluf dagaal oo aad u xoogan iyo sidoo kale abaabul ee barbar socda oo ku wajahan dhanka iyo gulufka dagaal ee magaalada Ceergabo iyadoo maamulka Qaatumo isbedel xoogan ku sameeyay talisyadii ee gobolka Sanaag oo dhawaan loo magacaabay saraakiil sarsare sidoo kale maamulka Qaatumo uu wada diyaar garow xoogan iyo gaarida halkaasi gaadiid fara badan iyo sidoo kale ciidamo kala duwan oo diyaar garowga xoogan qayb weyn ka dhinaca kale ciidamo beeleedyadii Somaliland ee dhankooda ku sugnaa qaybo kamid ah magaalada Ceergabo ayaa wada diyaar garow xoogan iyo sidoo kale in ciidamo beeleedyo horle halkaasi ku soo daabuliyaan ciidamo beeleedyo horle ayay keeneen qaybo kamid ah magaalada Ceergabo xilli ay si weyn ula socdaan dhankooda dhaqdhaqaaqa iyo abaabulka go'aan ee beelaha harti ee ku wajahan dhanka iyo magaalada Ceergabo ciidamo beeleedyadan kamid ah maamulka Somaliland gaar ahaan ciidamo beeleedyada beelaha kala habar jeclo iyo sidoo kale habar yoonisa oo qaybo kamid ah magaalada Ceergabo ku sugan ayaa ciidamo beeleedyo horle ku hubeynaya gudaha magaalada Ceergabo xilli dadka ee qaybo kamid ah dhanka iyo suuqa sare ee Somaliland ayaa halkaasi si weyn ugu hubeeyay ciidamo beeleedyo kala duwan sida xogii ugu dambeeyay tilmaamayaan maalmihii iyo toddobaadyadii la soo dhaafay iyada oo xilligan ay soconayaan diyaar garowgii ugu xooganaa ee beelaha harti gaar ahaan beelaha Qaatumo iyo Maaqir oo gaadiidkii dagaal ugu badnaa la soo degaya dhankooda sidoo kalena gulufkii dagaal ee ugu weynaa dhankan uu ku wajahan yahay magaalada Ceergabo kaasi oo go'aan xilli hore ay si weyn ugu dhawaaqeen beelaha Qaatumo iyo sidoo kale ee Maaqir ee go'aano waaweyn hore halkaasi ugu gaaray beesha Warsangeli ayaa talaabooyinkii ugu xooganaa xilligan wada iyagoo gaadiid dagaal hordhac soo bandhigay sidoo kale diyaar garowga xoogan ee xilligan soconaya beesha Nuux Cumar ee kamid ah beelaha Warsangeli ayaa wada diyaar garowga xoogan iyagoo gaadiid dagaal oo kor u dhaafay ilaa iyo 7 gaadiidka noocyadooda kala duwan la soo degay saacadii la soo dhaafay sidoo kalena muujiyay go'aanka iyo sidoo kale xilligan diyaar garowga ee beeshu ka wada deegaano kala duwan iyo sidoo kale gaarida deegaano kamid ah gobolka Sanaag oo xilligan ay gaarayaan gaadiidkan horle beeshan waxa ka dhashay saraakiil sarsare oo qayb weyn ku leh halganka dagaal ee ka soconaya buuraleyda Calmiskaad waxaana iyadoo beesha Warsangeli saraakiil sarsare oo kamid ah xilligan ay qayb weyn ka yihiin dagaalka xoogan ee ka soconaya buuraleyda Calmiskaad Qaatumo iyo Maaqir ayaa wada diyaar garow xoogan iyo abaabulo kala duwan xilli sidoo kale ay barbar socdaan gurmadyo xoogan oo kaga qayb qaadanayaan halganka iyo gulufka dagaal ee ka soconaya buuraleyda Calmiskaad halkaasi oo ciidamo fara badan iyo sidoo kale gaadiid dagaal ay geeyeen maalmihii ugu dambeeyay iyadoo halkaasi ciidamada kala duwan iyo gaadiidka gaaray sidoo kale qayb weyn xilligan ay ka yihiin gulufka halkaasi ka soconaya iyo talaabooyinka xoogan ee xilligan halkaasi lagu ciribtirayo kooxda argagixisada ee Daesh Qaatumo iyo Maaqir ayaa muujiyay diyaar garowgan xilli beelaha kala duwan ay muujiyeen inay ka go'an tahay diyaar garowga xoogan beesha Warsangeli ayaa talaabadan iyo sidoo kale beelaha kala duwan ee beesha Warsangeli horay u wadeen diyaarinta ciidamo kala duwan oo beeshaasi u dhashay oo deegaano kala duwan laga soo kala ururiyay sidoo kalena ee deegaanada kala duwan ee gobolka Sanaag ay ka wada soconayeen dhammaan abaabulka diyaar garowga gulufka dagaal ee magaalada Ceergabo oo ciidamo kala duwan ay beeshaasi deegaano kala duwan uga soo ururinaysay sidoo kale gaadiidka kala duwan ee beelaha beesha Warsangeli ayaa dhankooda diyaar garow xoogan iyo diyaarin ee sameynayay xilli sidoo kale horay ee beelo kala duwan oo kamid ah beesha Warsangeli u soo bandhigeen suugaga noocyadooda kala duwan oo ilaa iyo 4 ahaa suugagaasi oo ay la soo degeen qaar kamid ah ayay beeshu soo bandhigtay koor inta aysan gaadiidkan saacadii ugu dambeeyay soo bandhigin dhanka iyo maamulka Qaatumo waa maamul awood ahaan iyo sidoo kale ciidan ahaan ee muddo dheer jiray sidoo kalena leh taliisyo kala duwan oo deegaanada iyo gobolada maamulka Qaatumo ayaa diyaar garow iyo system dawlad oo maamul
ayaa diyaar garowgiisu yahay system maamul oo hoos tagaya dhammaan talisyada gobolka Sanaag isbedelada xooggan lagu sameeyay iyadoo guutooyin kala duwan iyo sidoo kale halkaasi gaadiid fara badan iyo hub noocyadooda kala duwan todobaadyadii ugu dambeeyay loogu diyaarinayay jiidaha dagaal ee dhanka iyo gobolka Sanaag gaar ahaan agaga jiidaha dagaal ee magaalada Ceergaabo ay gaarayeen gaadiidkan dagaal noocyadooda kala duwan si la mid ah ciidamada beeladyada Somaliland ayaa dhankooda xilligan dareensan diyaar garowga iyo gulufka dagaal ee beelaha harti ku soo wajahan iyada oo gudaha magaalada Ceergaabo xogo ay tilmaamayaan in beelaha kala habar jeclay sidoo kale habar yoonisa ay ku hubeynayaan qaar kamid ah dadka deegaanka gaar ahaan suuqa sare halkaasi oo si weyn xilligan ay hub noocyadooda kala duwan todobaadyadii ugu dambeeyay halkaasi geynayeen iyagoo ku qalabeynaya ciidamada beeleedyo hor leh iyadoo xogo ay tilmaamayaan in gulufkii dagaal ugu weynaa ee dhanka iyo beelaha harti uu ku wajahan yahay dhanka iyo magaalada Ceergaabo kadib marka uu toddobaadyadan soo gabagaboobo gulufka dagaal iyo halganka lagu ciribtirayo kooxda argagixisada Daesh ee ka soconaya dhulka Buuraleyda Calmiskaad قولت عسكر نحمر عبد بله أول عبد بله يا فرح عبد بله تضوع عبد بله لكن نحمر اسكو بينا له تضوع عبد بله بلا سودي لو انا واتاس انا واتاس شنو واتاس كو يلا